muddo saacada ah si toos hawada uga maqan shirkadaha Facebook, WhatsApp iyo sidoo kale Instagram. Daba waxaan idinla wadaagi doonaa sababta rasmiga ah ee ka dambaysa in shirkadahan waaweyn hawada ay ka baxaan iyadoo saddexdan shirkadood isku ahaayeen saddex shirkad oo isku wada xiran kuwaas oo isku lahaa nin lagu magacaabo Mark Zuckerberg balse inta aysan hawada ka bixin ayaa waxa ay ahaayeen kuwo qalqal lagu furay marka horeete iyadoo laga dareemayay in culays aad ah uu ka jiro dhanka Facebook balse muddo 10 daqiiqo ilaa 20 daqiiqo inta u dhaxaysa gudahood waxaa si toos hawada uga baxay saddexdaas application iyadoo shirkadahaasi ay ka soo bixiyeen qoraallo ay uga hadlayaan arrinta qabsatay shirkadooda. Haddaba intaanan idinla wadaagin fadlan muuqaalka like noo saar sidoo kale channelkeena subscribe saaro gambaleelkana furo si ay kugu soo dhacaan muuqaalada iyo warbixinada degdega ah halkan aan soo gelin. kusoo noqod wanaagsan saaxiibayaal sidaan hore idinku soo sheegnaba waxaa si toos ah hawada uga maqan oo adiguba hadda aad dareensan tahay Facebook, Instagram iyo sidoo kale WhatsApp kuwaas oo ah aaladaha loogu isticmaalka badan yahay haatan dunida aan joogno. Waxaa caawa adduunka oo idil ay isticmaalayaan shirkadda Twitter iyadoo shirkadda Twitter ay shaacisay muddo saacad gudaheeda in shirkadda Twitter laga sameystay 1 bilyan oo ciwaan in ka badan. Daba maxay tahay sababta meeshaas la iskugu burtay oo shirkadda Twitter ayaa kala xakameyn la macaamiisha cusub ee ku soo biiraysa shirkadaasi walow shirkadda Facebook ay ahayd shirkadda loogu isticmaalka badan yahay ama aaladda loogu isticmaalka badan yahay dunidan maanta ay joogno. Sida aan wada ogsoonahay Facebook, WhatsApp iyo Instagram waa saddex shirkadood oo isku leeyahay hal shakhsi waxaase la sheegayaa hackers ee shirkadda Facebook dhibaato u geysatay inay dhibaatadan u keeneen. Shirkadda Facebook ayaase ilaa hadda xakameyn la hackerskan dhibaatada aad ku weyn u geystay saddexdan shirkadood WhatsApp, Facebook iyo Instagram waxaase la sheegay saacado badan ka hor inta aysan hawada ka bixin in lagu soo socdo shirkadahan ay hawada ka bixi doonaan iyadoo oo lala yaabanaa aysan dad badan aysan rumaysan balse saacado kadib hawada ayay si toos uga wada baxeen. Warbaahinada dunida qaar ayaa waxa ay sheegayaan dadka hawada ka saaray inay ka mid ahaan jireen shaqaalaha shirkadda Facebook kuwaas oo ka hayay xog aad u farq badan walow shaqaalahaas la sheegay in dhanka finance-ga ama lacagaha ay qaadan jireen problem soo kala dhex galay iyaga iyo sidoo kale manageradooda halkaas uga tageen shirkadda Facebook balse maanta ay dib u dhibaateeyeen shirkadahaas oo barnaamijkana ku soo qaadanaynay dhibaatooyinka loo geystay shirkadda Facebook, WhatsApp iyo sidoo kale Twitter. Inta ayuu inooga yahay fadlan muuqaalka like noo saar sidoo kale channelkeena dad ku cusub tahay subscribe saaro gambaleelkana furo si ay kugu soo dhacaan muuqaalada iyo warbixinada degdega ah halkan aan soo gelin. Waad ku maasan tahay daawashada muuqaalkan daawatinta ku kulmi doono muuqaalka xiga waxaan idinkaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo.